adoo ilaahay ka baqay mise mihir أنا إلهي كبقى أبتقل بسرعة سكار وسنين كان yaa isku kiin qudbis مسكين يا gabadha qudbisara mataqaanaa lagu qaramsaday oo leeyahay wax kastaba hadda tole caadi noqonayaan bal ku soco أنا مقالك وأكو عزباي سدح بلود لين جوجي yaa isku kiin kaaxi sabka lagu gaaday أساكي أنا ضدك أنا قوم وليه okay hal xabaan ku weydiinaya adiga raali adayga ah qaladna ay fahmi nin aad magaca hooyadii aqoonsiyo guusan kartaa waa su'aal yani nin aad magaca hooyadii aqoon sideebaad u guursan kartaa markay da'dan oo kala jiraan waa markay ugu maskiinsan yihiin ugu daacadsan yihiin hadda gabadhan waxay haysataa ilmo 4 sano jira ay haysataa sayidoo noo sheegtay 4 jir yani cunug ah da'deeda hadda haddaan qiyaaso 24 meelahaas ku qiyaasay marka aad ka soo qaadbo 19 inay jirtaa ama 20 meelahaas oo kale waa markay dumarku ugu daacadsan yihiin waa marka wax walba aad u sheegto ay iska aaminayso assalaamu calaykum dhamaan asxaabta meel walba aad joogtaan bashar fikrama ku noolaad haddii aad page-ka ku cusubtayna fadlan falowda dhac ku sii haddii aad hore noola joogtayna noo sii share garee barnaamijkan aan caawinay sidoo gabadhan halkan aad ka arkaysaan sawirkeedu bartan ka muuqdo waxay ka cabanaysaa youtuber caan ah oo ay leedahay ninka adoo ilaahay ka baqay mise mihir أنا إلهي كبقى أبتقل بسرعة سكار وسنين كان yaa isku kiin qudbis مسكين يا gabadha qudbisara mataqaanaa lagu qaramsaday oo leeyahay wax kastaba hadda tole caadi noqonayaan bal ku soco أنا مقالك وأكو عزباي سدح بلود لين جوجي yaa isku kiin kaaxi sabka lagu gaaday أساكي أنا ضدك أنا قوم وليه okay hal xabaan ku weydiinaya adiga raali adayga ah qaladna ay fahmi nin aad magaca hooyadii aqoonsiyo guusan kartaa waa su'aal yani nin aad magaca hooyadii aqoon sideebaad u guursan kartaa yani qofaad waalidkiis aabihii hooyadii ehelkiisa qaraabadiisa intaba aad aqoon sidaad isugu aaminaysaa yani aad u guursanaysaa yani waa dhibaatooyinka dumarka Soomaaliyeed haysta weeye waxa weeye afka loo dhuubayaa waxa aan jirin baa loo sheegayaa hadhowtana waa aqoona baraha bulshada ka wada cabaadayaan hadda gabadhan social media soo fadhiisatay ay waliba ka cabaaday imisa gabdhood oo Soomaaliyeed baa jira oo mataqaanaa aan hadlin oo hoosta ka ooyay أبتو إيش هاي ما حسوست براش العقبة صع واسعيل كام يعني ولا لي سوي عيان أسيبه عيا يعني gabadha qolaatay qodbasaro in lagu guursado familka sharaf iyo karaamo agteeda kuma yeelanayso waa sababta loo leeyahay war guurkiina cadaysta oo marka gabadha lagu guursanayo guurkaaga ummadoo dhan u cadee oo aabaha iyo hooyadaha laga soo doonto oo waalidkaha laga soo doonto oo walaaladaha laga soo doonto guurka marka la cadeeyo waxa weeye familka sharaf baad ku yeelanaysaa familka u tagi doontana waa lagu sharfaya laakiinse gabadh waalidkeed ka qarisay oo xushmeyn weyday ama ehelkeed ka qarisay oo xushmeyn weyday iyay tahay cid kale sharaf iyo karaamo agteeda ka yeelanayso isweydiin waa inaad isweydiisan dumar maskaxda inta shaqayso دربية اسكال شكستا ما هو adigu aabaha khasab wey أبي من جوجا حمر وجرا dad guurkaaga qarisay aad umada ka qarisay waxa way hadhow tan oo kala ku iimanaysa qofku yaanu ka fakirin baahidiisa waqtiga hadda taagan baahidaada hadda taagan ama duruufta hadda ku haysata ha ka fakirin marka hadhow tu guursato ama qodbisaro ku guurso ama waxa doonto ku guurso ilma meeshi imanaya waa marka lagu leeyahay waxaad garanayso guurso waxa tahay yani waxaad garanayso guurso waxa taqaanid aad dhashide waa markan oo kale marka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa war walba haddaad guursanaysaan aad guur gelaysaan guurkiinu ha noqdo mid ehelkiina iyo qaraabadiina iyo familkiina cid walba ay ogtahay laakiin inta hadhow toluuq lagu hoos mehersado oo aad tiraado hoos mehersigu waa xalaal aad tiraado hoos mehersigu waad ogtiin culimada dhanba ka hadashay inuu hoos mehersigu uu xaaraan yahay oo xaaraan maqdac yahay waxa way diinta islaamku inoo sheegtay marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay yani arrimahan oo kale idinku dhicin yani hadhowto social media inta soo fadhiisataan aad ka baroorataan iyadan dhihin ilmaan nal ku dayacay ama ilmaan nal ku dafiray guurkiina cadaysto si aad hadhowto le waxa taqaaniin aad u dhashaan si aad hadhowto le khayrka aad mataqaanaa lagu guuriyay aad sharaf iyo karaamo agtooda aad ugu yeelato waxa way guurkiina cadaysta gabadh hoos ka mehersi cid kale ku gashay cid sharfaysa haba yaraatay ma jirto muuqaalka sii shar